kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo Warsan TV iyo waliba barnaamijkii toddobaadka iyo geeska Afrika. barnaamijka toddobaadka iyo geeska Afrika daawadayaal waxa aan ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca geeska Afrika. qodobada maanta aan idinku haynana waxa ay kala yihiin wafdigii ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee markaasi booqashada ku yimid dalka Djibouti caasimadiisa magaalada Djibouti oo kulan ballaaran la yeeshay xubnaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed oo iyaguna magaaladaasi ku sugan. markab kuwa dagaalka ah oo ay leedahay dawladda Faransiiska oo lagu arkay xeebta magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka dekada weyn ee Muqdisho iyo doorasho la xiriirta guddoonka ururka kooxaha kubadda cagta Soomaaliyeed oo lagu qabtay hotelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. waa hagaag daawadayaal qodobka ugu horeeya ee barnaamijka toddobaadka iyo geeska Afrika waxa uu yahay wafdigii ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee markaasi booqashada ku yimid magaalada Djibouti ee caasimada dalka Djibouti ayaa waxa uu kulan ballaaran la yeeshay xubnaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed oo ku sugan magaaladaasi Djibouti. ururada bulshada rayidka ah Soomaaliyeed ayaa waxa ay guddiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay kala hadleen arrimo fara badan oo khuseeya dalka Soomaaliya. wariyaha Warsan TV magaalada Djibouti uga soo warama Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan ayaa arintaasi inoo faahfaahinaya. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta waxay kulan ballaaran la qaateen wafdi ka socda qaybaha ururada bulshada rayidka ah ee ka howlgala wadanka Soomaaliya. kulankan oo ka dhacay hotelka Kambiniski ayaa waxaa ka qayb galay dhowr hay'adood oo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ka howlgala iyo sidoo kale wakiiladii ka socday golaha ammaanka qaramada midoobay. kulanka ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen sidii wax looga qaban lahaa isla markaasina loo dadejin lahaa howlaha aadannimo sidii lagu gaarsiin lahaa Soomaaliya oo ay ururada bulshada rayidku ka dayriyeen xaaladda aadannimo ee haatan ka jirta. waxa ay sheegeen xubnahaasi in ay Soomaaliya ka jiraan abaaro ba'an barakac xoogan oo gudaha iyo dibaddaba ah sicir barar dadka naafiyay iyo sidoo kale aburcad badeed ah oo farabaan ku haya maraakiibta isticmaasha xeebaha Soomaaliya ee ganacsiga iyo sidoo kale howlaha kale ee samafalka geeya. waxa kaloo ay sheegeen xubnahani in ay kala hadleen qaramada midoobay arrin ku saabsan in maraakiib shisheeye ah ay biyo wasakhaysan ama wasakh ku shubaan xeebaha Soomaaliya iyo sidoo kale in maraakiib shisheeye ah ay kalluumaysi aan sharci ahayn ka geystaan Soomaaliya. waxa kaloo xubnahani ay sheegeen in qaramada midoobay golaheeda ammaanka u gudbiyeen in Soomaaliya ay ka dhaceen tacadiyo ba'an oo xagga xuquuqul aadamaha ah isla markaasina ay doonayaan in maxkamad la soo taago oo baaritaano la sameeyo cid walba oo dambigaas ku lug lahaatana maxkamad caalamiya la geeyo. xubnahan ayaa sheegay inay codsadeen in la dedejiyo isla markaasina la sii wado wada hadallada qaybaha Soomaalida iyagoo sheegay in intii ay joogeen Djibouti ay kulan ballaaran la qaateen wakiilada dawladda federaalka ah iyo isbahaysiga mucaaradka labada dhinacbana ay sheegeen inay ka go'an tahay nabadda Soomaaliya in dhankooda ay u dadaalaan isla markaasina ay hirgeliyaan. xaawo cali jaamac oo ka mid ahayd xubnihii ururada bulshada rayidka ee kulankan ka qayb galay ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankaas la iskula soo qaaday. lagala hadlay golaha ammaanka iyo Security Council-ka waa badnaayeen waxayna wada ahaayeen arrimaha Soomaaliya ka taagan haday tahay maxaan ku iraahdaa nabadgelyo la'aanta iyo dhibaatada dagaaladu ay ku hayaan qaxootiga iyo barakaca dadka gudaha wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba ku haysta abaaraha iyo maxaan ku iraahdaa maciishada sicir bararka maxaan ku iraahdaa xadgudubyada maxaan ku iraahdaa xuquuqul insaanka ee ka dhacaya dalka gudihiisa. waxa kale oo kamid ahaa burcad badeed iyo maxaan ku iraahdaa wasakhaynta maxaan ku iraahdaa badda iyo
kalluumaysiga aan sharciga ahayn maxaan ku rahdaa hay'ad dawladaha caalamka maxaan ku rahdaa ay baddii iyo khayraadkii dalka boobayaan iyadoo aan wax ka ilaalinayaa jirin waxaan kaloo kala hadalay Soomaaliya nabad la'aanta sidii nabadda loo xasilin lahaa oo dalka loo dejin lahaa oo maxaan ku rahdaa dib u heshiisiin rasmiya oo loo dhan yahay oo yani nin waliba u baahan yahay in yani la sameeyo waxaan u sheegnay in aanu la kulanay labada dhinac ee siyaasadda isku haya dawladda iyo maxaan ku rahdaa isbahaysiga ka soo horjeeda waxaanuna u sheegnay inay qolo waliba maanta diyaar u tahay in la sameeyo maxaan ku idhaahdaa nabad ay diyaar u yihiin wadiiqooyinka loo marayo iyo wadooyinka loo marayo qoloba si haw sheegto laakiin waxaa la wada raacsan yahay oo la wada doonayaa in la heshiiyo oo dalka nabad lagu soo celiyo oo maanta nin waliba xaqiiqsan yahay in aan xoog iyo xabad wax lagu xallin karayn taasna waanu u sheegnay annaguna fikirkayagii baanu ku daray oo aanu nidhi arrimahaas ayaanu taageeraynaa nabadda in la helo in la heshiiyo wada hadallada in la xoogeeyo caalamkuna uu noqdo mid arrinta Soomaaliya dhexdhexaadna ka ah maxaan ku idhaahdaa isla markaana baahida Soomaaliya u qabto nabad iyo dawlad iyo xasilin ay taageeraan oo si daacada u taageeraan intaas baa ugu waaweynaa waxyaalihii aanu kala hadalnay annagu ma aanan carifin ma aanan oran qoladaa iyo qoladaasaa geysatay laakiin cid kasta oo geysatay caalamkuna waa ogyahay ummadda Soomaaliyeedna waa ogta qolo kaliya ma geysan waxaan qabaa Soomaaliya say u dhan tahay xadgudubyada waa laga geystay haba loo kala badnaaday marka cid alla ciddii geysatay annagu ma oran qoladaasaa geysatay waxaanu ognahay in la wada geystay oo aan cidina ka maqnayn marka cid alla ciddii geysatay waxaanu ka codsanay in la dabagalo la raadiyo la soo taago maxaan ku iraahdaa maxkamad caalamiya la keeno oo dambiga ay geysteen lagu qaado haday tahay muqdisho kaliya indhaha iyagu annaga ku dhici maayaan dalka oo dhan baanu ka hadlaynaa dalka oo dhan bay ka dhacdaa anigu meeshan ka imi bay ka dhacdaa boosaasan ka imi waana ka dhacdaa maalin walba marka sidaa darteed ma aanan oran meel heblay ka dhacdaa iyo meel heblay ku badan tahay waxaanu niri wax alla wixii geystay xadgudub ummadda u geystay ama ha noqdo mid loo geystay shacbiga ama ha noqdo mid yani dumarka loo geystay iyo mid dadweynaha oo dhan loo geystay ha noqdo waxaanu aragnaa in ay tahay maxaan ku iraahdaa in wixii ay mutaysteen la marsiiyo dhanka kale wafdiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka socda ayaa shir jaraa'id iyaguna ku qabtay isla hotelkaasi Kambiniski ee dalkan Djibouti xubnahan ayaa waxa ay ka warbixiyeen kulamadii kala duwaneed ay la qaateen wakiiladii dawladda federaalka ee hogaaminaya madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf sidoo kale isbahaysiga mucaaradka ah ee horkacay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ururada bulshada iyo qaybaha kale ee beesha caalamka wada hadalladii halkan ay kula yeesheen safiirka South Africa ee qaramada midoobay Dumisano Kumalo iyo safiirka dawladda Ingiriiska qaramada midoobay oo wafdigan si wada jir ah u hogaaminayay ayaa waxa ay sheegeen in ay labada dhinacba kala hadleen xaaladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto kala duwanaansho xagga joogitaanka ciidamada Itoobiya ah oo qolyaha mucaaradkuna ay leeyihiin waa in Itoobiya dalka laga saaraa si dhaqso ah halka dawladuna ay sheegeen inay ku doodeyso in haddii ciidamada Itoobiya xilligan ay baxaan ay qalalaasa ammaan iman karto waxayna sheegeen in arrintaas aanay go'aan degdeg ah ka qaadan laakiin marka lagu laabto xafiiskooda ay si rasmi ah go'aan cad uga soo saari doonaan waxay ku tirtirsiiyeen labada dhinac ee wada hadallada u socdaan inay ka dhabeeyaan wada hadalladooda